Bismillah, assalaamu calaykum. Waa idin salaamay asxaabta. Kusoo dhawaada channelkeena Bushra Cooking and Healthy. Walaalay maanta waxaa rabaa wax yar oo remedy yar oo muhiim ah inaan idinla share gareeyo oo la iga soo codsaday. Wax badan la iga sugayay insha Allah. Marka waxyaalaha u baahanahay iyo waxa aan sameyn rabno aan idinla share gareynaa insha Allah. Kusoo dhawaada channelkeyga. Marka maanta waxa sameyn rabnaa insha Allah. Gabdho badan ayaa iga soo codsadeen waxyaalaha lagu qurxiyo qaarka sare oo dumarka ama naaska breastiga lagu weyneeyo laguna adkeeyo marka alaab u fiican oo lagu adkeynayo oo ku weyneynayo hadaa weyneys u baahan tahay inuu increase ku noqdo breastigaaga uu yar yahay ama naaskaaga alaab lagu weyneynayo oo ku adkeynayso tight kaaga dhigayso maadaama qof hooyooyinka markay ilmaha nuujiyaan xoogaa sidii gabarnimada aysan ahaaneynin marka codsigaas ayaa rabaa gabdhihii iga soo codsadeen insha Allah inaa u hagaajiyo inta kaleeto igu xiran walaalahaygana ay ka faa'iideystaan insha Allah iyo intii aragtaba marka waxyaalaha u baahanahay walaalahay waxa waaye cucumber u baahanahay qajaarka saa u ognahay dhinaca breastiga aad ayuu ugu fiican yahay meesh in uu adkeeyo qayb weyn ayuu ka qaadanaa waxa kale u baahanahay sonf bahalkan u jeedin waxa u baahanahay sonf waaye fennel seed ayaa la dhahaa waraaqdiisa ma haye hadda ka hor fiidiyogeeyaasheeda ku jira hadaa gadaal u raacdin anoo shaah ka hagaajinayo mirahaneeti miro aad u wanaagsan waaye oo maxaa la dhahaa mudaawaad ah maasha Allah waaye waxa u baahanahay marka aloe vera gel waa u jeedin iyo waxa u baahanahay meeshaasna saliid ayaa noogu jirto saliida u baahanahay waa almond oilka wax uga fiican dhinaca breastiga ama inay naaska lagu taago number 1 ayay ku tahay waxyaalaha ku hormareen ayay ku jirta marka waxa u baahanahay walaalahay fennel seedka waa soo shiiday powder ayaa ka soo dhigay inaa powder ka dhigtid waaye asagoo miro ana waa kaasa marka qajaarkana waa inaa soo hoosha waa soo hoolay biyihiisa ayaa u baahanahay insha Allah marka waxa u baahanahay in alaabteena isku dadarsano la socosho wanaagsan waxa u baahanahay baaquli oo eber ah insha Allah walaalahayga waa kaasa marka baaquliga u baahanahay iyo caanamirkaas soo qaadanayna waxa ku shubay qajaarkii aan soo hoolay geedka kaaroodka ayaa u isticmaalaysaa hadaad rabtid waa shiidan kartaa but san easy waaye oo qof kastana uu awoodo insha Allah biyihiisa ayaa qaadanayna marka biyaha intaas ayaa u baahanahay marka waxa u baahanahay hadeertaan aan ku darsanayna fennel seedka ayaa ku dareena ani hadda 2 qaado ayaa ku daraa oo yar yar marka intaas marka ku dartid waxa u baahan tahay inaad ku dartid saliid 1 qaado yar ayaa qiyaastay ani gacanteyda way baratay that's why u qiyaasa marka intaas ayaa isku qaseena horta horeeto alaabtan maasha Allah hadaa seeta u isticmaashid isbedel ayaa ka arkaysaa markuu intaas ku marayo marka walaalahay marka intaas isku walaaqo waxa u baahanahay aloe vera gelka u baahanahay aloe vera gelka 1 qaado oo yar ayaa u baahanahay marka intaas ayaa isku qasaysaa insha Allah si fiican ayaa isku dhexgelinaysaa intaan marka waa kaasa walaalahayga si fiican ayaa isku dhexgeliyay maasha Allah marka waxa sameynay alaabtan waa qabanaysaa gacantaada ayaa ku qaadada ayaa sas gacantaada ugu shubanaysaa marka waxa ugu soo bilaabaysaa hoos ilaa geesaha si round ah ayaa ugu masaajaysaa wareeg yacni si wareeg ah ayaa ugu masaajaysaa meesha
alaabtaada. Marka kadib waa ku dhaafaysaa, maxaa xiranaysaa baraagaaga xiranaysaa, waxaa ku joogaysaa 40 minute 30 minute. alaabtan haddaa markasta isticmaashid maalin walba isticmaashid, isbedel ayaa arkaysaa insha allah. 3 wiig gudihiisa isbedel badan ayaa ku arkaysaa, wax ayaa iskaga dareemaysaa. mirahan haddaa idin sheego faa'iidaday leeyihiin, anoo shaax ka sameeyna waa aragteen. I hope inaad si fiican u aragtiin. mirahan aad ayay u fiican yihiin, waa mudaawaad dhinaca hormoonka xataa wuu ku fiican yahay. qofkii oo hormones balansiga uu ka qaldan yahay wuu cabi karaa, aad ayuu u fiican yahay. marka dhinaca oo increase inuu breastka uu ku weynaadana shaqo fiican ayuu ka qabanaa. dhinaca tightenkana sidoo kale wuu ku adkeynayaa. marka waxaa helaysaa alaab qurux badan oo maasha allah oo laga helaayo maybe like attractive oo yacni wax yariis iyo meel qurux badan oo lasoo habeeyey isku mid ma ahan. xaajigaagana ka helaayo maasha allah, adiga naftaada aa ku qancaysid. muhiim ma ahan inuu xaaji aa haysatid, waxa muhiim ah in aad naftaada ku qancaysid oo quruxdaadana ka talinaysid oo ku dadaalaysid quruxdaada. soo walaalihii intaas ayaa idila sheer garaynayay. aad ayaa u mahadsantihiin sida ay supportkiina iyo sida dhiirigelinta ii dhiirigelinaysiin. aad ayaa ugu mahadsantihiin. jazaakumullah ayaa idin leeyahay. please haddaa ku cusub tahay channelka subscribe, beelka taabo si aa u heshid wixii aa soo dhigo. like iyo sharena waa dhankiina, iyo commentiyaashiina quruxda badan. comment iyo bixi wixii aa rabtid inaa markaas ka soo hadlo insha allah I will. marka gabdhihii iga soo codsadana waa kaasaa codsigiina walaalahayga. aad ayaa u mahadsantihiin, waana ka xumahay inta yaraa idinkala soo daahay cause waqtiga iga soo codsateen xoogaa waqti ayaa kasoo wareegay. anyway finally waa idin keenay. I hope inaad ka faa'iidiin videogan oo wax un aad ka faa'iidiin insha allah. marka sidaas iyo waxaa idinka tagayaa. see you the next video insha allah. assalaamu calaykum.